السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسور وهذا الخليجي زانيس marwalba kala socotaan cilmiga computerka. casharkan waxaan ku baran doonaa haduu rabbi ka noqdo application Windows qaybaha uu ka kooban yahay folderkaada markuu shidan yahay ama markuu xiran yahay sidee loo soo kiciyaa waxyaabahaas aan ku baran doonaa haduu rabbi ka noqdo iyo barnaamijyada uu ka kooban yahay ayaan sharxi doonaa mar kale ku soo dhaw Alkhaliiji Zaanis. haddii aad ku cusub tahay channelkeena subscribe garee kambalelkana furo. application window waxaa lahaa qaybaha uu ka kooban yahay windowga ama faylka uu ka kooban yahay sida loo soo kiciyo kaas waa ka soo kici karnaa kana waa ka soo kici karnaa ama folder walba uu shaqeynay soo kici file explorer kana loo jeedaa muhiimada meesha qorka double click ku sii kana wuxuu leeyahay close maximize minimize double click in qaybtan kor ku weynaysid geesaha inaad ku jidid. waxaan rabnaa shaashada markii saan full u tahay sidee aad soo yareyn kartaa double click leedahay double click dheh qaybta kore kadib waxaan rabnaa inaan move gareeno sidee move gareyn kartaa left mouse isticmaal keyboardkaada mouse-kaada kadibna qaybta adiga aragtid ku jid. waxaan rabnaa haddana keyboardka adigoo isticmaalaysid inaad move gareysid alt space m ayaad leedahay afar faraar isku bedela kadibna qaybta meesha aragtid marka geesid kadib enter ayaad leedahay. waxaan rabnaa geesaha inaan ka jeedno aan ku balaarino geeska waxa ujeeda saas inaad u sameyn kartid ama saa u jeedi kartid. waxaan rabnaa keyboardka adigoo isticmaalaysid u sameyn kartaa alt space s ayaad leedahay dhinaca aragtid u jeedi kartaa hoos u jeedi kartaa oo soo yareyn kartaa cabirka aragtid markaa heshidna kadib enter aad leedahay. sidee u weyneyn kartaa shaashada markaad waxay tahay normal calaamada maximize ayaa kali ku siinaysa haddana way yaraanaysaa restore ay noqonaysaa ama alt space aad leedahay x ama alt space r ayaa leedahay. sidee minimize u sameyn kartaa minimize waxa lahaa shaashadan iyo tusi okay calaamadan kali ku sii waa lagu soo bandhigaa haddana soo bandhig keyboardka aad isticmaal alt space n ayaa leedahay waa soo bandhigi kartaa. sidee u xiri kartaa dhowr wada ayaa lagu xiraa wadada koowaad xiritaanka calaamada waa kana kali ku sii soo kici mar kale ama alt space c ama alt f4 on the keyboard kaada ayaa fiirinaysaa sidaas oo sameyn kartaa. waxaan kaloo ku ogaan doonaa taskbarka anagoo isticmaal anagoo xiran waxaan rabnaa taskbarka inaan aragno oo taskbarka marka isticmaalin faylka inuu soo bandhig intuu noo yaala right click leh taskbar show desktop dheh haddana soo bandhig show open windows ayaad ku soo bandhigi kartaa. intaas ayaan ku soo gogweynayna cashirkii aan ku barnayno taskbarka applicationka qaybaha uu ka kooban yahay. haddii aad ku cusubtahay channelkeena fadlan subscribe like share si asxaab badan ay ugu faa'iideystaan adigana aad ka mid noqdo daawadaha ugu horeeya ee daawada fiidiyogan mar walba.